بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. tilmaan haddii aad dhaqan ka dhigato aad ku helisto ajar fara badan adduun iyo aakhirana ku anfici doonta barabtana tilmaanta ogaato videoga ha ka fogaan. tilmaantan waxay tahay tilmaan aad iyo aad u qaaliya, tilmaan koobsanaysa sharafta oo dhan. tilmaantaas waxay tahay runta haddii aynu qeexno waxay tahay inaad shayga u sheegto sidii uu u dhacay adigoo wax ku darin waxbana ka naaqusayn ama ka soo horjeedka beenta. runtu waxa ay tahay sabab ka mid ah sababada jannada lagu galo. إلهي وحا أوليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كوي ألي النبي كورمهيو إلهي كبقى كوا رمت الشيغانا كمن نقضة الله كعبسيو يرون شيغونا مرول بويسكو حرين حتى نادي إلهي كعبسانين لغا ميابو إنا دور شيغتو. رسولك صلى الله عليه وسلم markii mu'minka su'aal laga weydiinay waxa lagu weydiiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ninku mu'minkii ma ka suurtooda inuu waxado. rasuulku sallallahu alayhi wasallam haawuri ma ka suurtooda inuu zinaysto. haawuri rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri ugu dambeyntii la soo gaarsiiyay mu'minku been ma sheegi karaa. rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri maya been ma sheegi karo. beentu halkaas ay gaarsiisan tahay. beentu waxay ka mid tahay iyadna waxyaalaha lagu mutaysto naarta. rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiid saxiix waxa laga hayaa inuu yiri inna sidqa yahdi ila albir. runtu qofka waxay u geysaa wanaagiisa falka wa in albir yahdi ila aljanna. samafalkuna waa qofka wuxuu u geeyaa jannada. wa in ar-rajula la yasduq hatta yaktaba 'inda allahi صديقا نكون رون شيء لا حق إلهي لغا قرو رون بدني. وإن الكذب يهدي للفجور بين تنقفك وحي وجيسا قال لمو. وإن الفجور يهدي إلى النار قال لمو تنقفك وحي وجيسا نار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب لا حق إلهي لغا قرو بين بدني. وناقي سنفلكو ووحقفك مؤمنك إنه لغان كدكتو muhiim tahay. waxa ayad lagu daliishataa oo laga soo qiyaastaa marka uu nabi ciise leeyahay awsaani bis-salaati waz-zakaati inuu qofku adduunyada uu leeyahay laba dhaqaaqa koowaad oo dhinaca ilaahay oo salaada iyo samafalka iyo ikhlaaska iyo run sheega xagga ilaahay daacadnimada ilaahay darteed u qabanayso iyo wanaagii samafal dadka dhinaciisa aad u dhaqayso. dadka aad wanaag iyo samafalka aad kula kacaysid oo dadka aad wanaaga faraysid xumaatana ka reebisid. haddaan soo qaadano 3 qiso oo aad u gaagaaban. 3 qiso ta koowaad waxa weeyaan wiil yar oo kaftan badnaa oo kaftankiisu been inuu sheegay ku liftay. wiilkeer waxa uu deganaa tuuladaasna xeebta bay ku taalay. kii yaraad wuxuu shiri dabaatag kaftankiiba markaa wuxuu shiri dadka madna kaftantii markaa wuxuu yiri badii bay la ceeliday hala ii soo gurmado. kii yaraa markii loo yimidena been baan idin sheegay buu ku dhawaan la kaftamay. dadkii iyagoo caarisan bay noqdeen. shadii dambe ayaa waxa dhacday isaguna dabaal labaad buu baxay. haddana waxa dhacday badda cishada way kacsanayd way la ceeriday. badii markii la ceeriday ayuu hala ii soo gurmado. kadib markii dambe dadkii waxay yiraahdeen waa beentiisii hore. ninkan sidii uu ku dhintay. waxa la yiraahdaa markaa Soomaaliduna ku maamahada beentaada hore runtaada dambe disha. qisada labaad waxay tahay wiil yar oo naqan oo
ay gacantiisa ku toobad keeneen burcad dadka waxadi dadka dhici jirtay. Keer waxa uu ahaa keeroo naqan, waxa uu ka tegay Maka, waxa uu tegay Baghdad si wax ugu soo barto. hooyadii waxa uu ballan kula galay in uu run sheego. hooyadiina 40 diinaar bay siisay inta muddada safarka ku jiro. Kiira marka uu safarkiisa uu la socday dhex bartamaha ay socdaan ayaa burcad qabsatay, waxaana ku qabsadeen meel loo yaqaan Hamadaan. qof walba marka la baaro waxa uu yiraahdaa waxba ma hayo, lacag ba laga soo saaraa. Kiira baa loo yimid, Kiira baa lagu yiri lacag maxaad haysaa? waxa uu yiri 40 diinaar baan hayaa oo hooyadaysiis. ninkii uu shikiyay, nin kale u yimid, su'aashii weydiiyay, isla intii uu ninkii nooga jawaabay, Kiira uga jawaabay. marka cadkaystay baa loo geeyay. waxa uu Kiira weydiiyay su'aashii labadii nin hore ay weydiiyeen oo lacag maxaad haysaa? uu Kiira yiri waxaan hayaa 40 diinaar oo hooyadaysiis. markaasuu yiri maxaa kugu kalifay inaad runta sheegto? waxa ay u kalifay inaan runta sheego, waxaan ka baqay inaan ballankii hooyaday ka baxo, ayuu Kiira yiri. ninkii intuu ooyay buu yiraahdo ballankii hooyaday aad ka baxdaad ka baqday, anaguna ballankii Ilaahay baan jabinay. ninkii boqorkii iyo intii la socotayba way toobad keeneen, Ilaahay bayna u toobad keeneen. runtu qiimaha intaa leeg bay leedahay. sheekada saddexaad ee ugu dambaysa waxay tahay nin Ilaahay run u sheegay. ninka waxa ku dhacday in dhegta dhagax ka galay. dhegta dhagax baa ka galay. dhakhaatiirtii xilligaa joogtay way ka saari kari waayeen. markii dambe uu ninku soo quustay, salaad buu galay, wuu sujuuday. waxa uu yiri Ilaahayow dhibaatay qabsatay adigana raxmad badan ee raxmadaada iga qaad dhibaatada ay haysato. Ilaahay naxariistiisa uu kaga qaaday dhibaatadii. dhagaxii dhegta ka galay isagoo maqlay ayuu ka soo dhacay. saddexdaa sheeko run ahaantii ku saameynaya markaad maqlayso runtu iyo qiimaha ay leedahay, meesha ay taagan tahay. dad videoga jeclaatay hanagala bakhayn inaad taabato subscribe, jalaskana taabato wixii dambe la socotid. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi